soo dhawaad saaxiibayaal muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay cryptocurrency. markaas aad ogtihiin maalmaha u dambeeyay muddooyinka u dambeeyay suuqa crypto xoog ayuu daatay weli intaa in leegnaa muddada sanada laga joogo meelan arag hoos u dhacantaa leeg oo crypto ay gaadhay. marka halkan waxaan idinku wadaagi doonaa 3 qodob oo waaweyn oo saameyn ku leh cryptocurrency-ga iyo weliba hoos u dhaca waqtigan la joogo. marka qodobkan koowaad wuxuu noqonayaa waa siyaasadda Mareykanka. siyaasadda gudaha ee Mareykanka waxay saameyn weyn ku leedahay suuqyada maaliyadeed ee caalamiga oo ay ku jirto cryptocurrency. muddooyinka la soo dhaafay siyaasadda madaxweyne Donald Trump gaar ahaan cashuuraha ganacsiga iyo ficilada siyaasadeed ee aan la saadaalin karin ayaa keenay awoonti la'aan weyn oo suuqa madaqaana ka muuqata. tan markaa waxa ay horseedaysaa ama waxay yareynaysaa kalsoonida maalgashadayaasha cryptocurrency, taasoo keentay in dad badani ay ka leexdaan ama ay ka baxaan suuqyada iyo weliba saamiyada cryptocurrency, taas oo hoos u dhigaysa qiimaha cryptocurrency. waxaana la warinayaa in go'aanada Trump ay keeneen hoos u dhaca 10% ilaa 12%, taasoo saameyn taban ku yeelan karta qiimaha cryptocurrency. Trump way noognahay go'aamadiisa qallafsan maalin walba iska soo saarayo amar aan jirin, amar aan hore loo aqoonin, sharci cusub, sharciyo kala duwan wax nooca la xiriira. marka tan ayaa keenaysa oo ka dhigaysa dadku in aan waxaan hubin iyo suuq aan lagu kalsoonaan karin inuu suuq noqdo. dibtan dadku ay lacagtooda haystaan ama ay la baxaanba maadaama aan lagu kalsoonaan karin Trump arrimihiisa, oo taasina ay arrin weyn ama saameyn ku leedahay suuqa Mareykanka oo saameyn weyn ku leeyahay. taas markaa waa mid ka mid ah qodobada saameynta ku leh. qodobka labaadna waxa weeyaan dhammaan suuqyada crypto oo daatay, suuqyada oo dhammaan dadkii lacagaha haysta ay iibinayaan. suuqyada cryptocurrency-ga ayaa dhammaan hoos u dhacay, taasoo keentay in maalgashadayaashu ay iska iibiyaan ama ay kala baxaan lacagtoodii maadaama suuqii uu galay waqti adag oo hoos u dhac weyna. dadku waxay ka cabsi qabaan inay ku dhacdo khasaare ka badan tan ama ka weyn maadaama aan la hubin suuqu inuu kor soo kici karo, in hoos u dhici karo. marka laga soo bilaabay iminka tusaale ahaan sanadkii 2024 bishii November, Bitcoin waxay mareysay 100,000 ilaa 108,000 bay mareysay, halka maanta ay marayso 70,000 ay marayso. taas macnaheedu waxay tusinaysaa suuqu inuu hoos u dhac weyn ay ku timiday. dadkuna waxay ka cabsi qabaan khasaaraha hadda gaadhay khasaar ka badan inuu gaadho. saas aawadeed dadkuna badanaa waxay sameynayaan lacagtii inay u bedelaan lacag stable coins-ka, lacag stable ah oo stable coins inay lacagta ka dhigaan u bedelaan oo halka ku haystaan ama inay gebiga iska iibiyaan. walow hadda Trump haddana uu sheegay soo waxyaabo fiican uu qabtay oo xeer wanaagsan uu sameeyay, haddana weli hoos u dhac ayaa jira. markaa waxa ay ka mid noqonaysaa in dadku ay ka shaki qabaan maadaama suuqu soo dhan u casaaday in ay suuqa hoos u sii socdo. qodobka saddexaad ee saameyn weyn ku leeyahay waxa weeye oo sana weliba midka labaad ama oran karo ee weyn waxa weeye amni darro. saynu ognahay maalmihii la soo dhaafay bishii February 20keedii waxa la jabsaday exchange weyn oo loo yaqaan PayPal, taasoo keentay dadkii in lacag badan ay waayaan. saas limidan dadku waxay ka cabsi qabaan in kuwa kale la weeraro oo xagga lagu sameeyo lacagahoogii la dhaco. sidaas aawadeedna dadku ay lacag badan kala baxaan oo ay kala yaacaan suuqa oo ay iska iibiyaan lacagahoogii. marka amni darraduna waa mid ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee keenay crypto in laga yaaco, dadkuna ay iska iibiyaan. marka dhibaatooyinka amniga la xiriira ee cryptocurrency-ga ayaa sidoo kale door weyn ka ciyaaraya hoos u dhaca qiimaha crypto. marka iyaduna waa mid ka mid ah faktarada ugu waaweyn. walow ay dhacaan kuna marmar ay dhacaan, laakiin waa markii abid ugu weyn lacagta laga la dhaco oo exchange la yaqaano oo lagu qaansana lagu sameeyo hacks lagu sameeyo. marka 3 qodob baa saaxiibayaal ugu waaweyn, 3 qodob ee aan ilaa hadda anigu hubo in suuqa hoos u rideen oo ay keeneen hoos u dhac weyn in maanta suuqa halka maro oo saas oo suuqu u casaado. marka waxaan rajeynayaa maalmaha soo socda ilaa bisha ciida ku dhawaad in suuqu soo kici doono ilaa bisha April suuq meel fiican soo gaari doono.